بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله بإسكا ضعيف سنة حنون يوحنا إسكا جرجرة لكن waxaan intaan ka fiicnaadaatan ka sugi lahay oo nin la yiraahdo aan isku reernahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur la yiraahdo shakhsi aan dadka yaqaan ku jiro ayaa waa ka hadlaya xadgudubkiisa waan ka hadli doonaa insha Allah waxaan kaloo waxoogaa ku dari doonaa wadaad kaloo hadda asaga shakhsi ahaan aan aqoon laakiin qoladan suufiyada uu hadlayay oo Sheekh Muxiidiin Xasan ayaan la eego ay magacaas u qoraa meeshaan ku arkay markaas xoogaa nimankaas xoogaa aan ka taaban doonaa insha Allah taala markaan ku hormaro Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan horta runtii wixii xadgudub kaliya ma bal cindi aniga waa heer kufriyu gaaray bal yani baciid maahan hadii la yiraahdo waa kafar yani warkaas warcad sababtu waa maxay waxa weeyaan aniga waxaan ku ogahay xadiidkaas inuu saxiix yahay inuu yaqaan si kas ah oo marka wuxuu u yiri wuxuu ku sheegay falsification iyo kutubo ay wadaadadu jeebabkooda kala soo baxeen xadiis cad oo la yaqaano oo Bukhari ku yaala oo macruuf ah oo dadka dhan way yaqaaneen oo saxiixa waxa weeyaan marka yani inuu saa uu la hadlo waxa weeyaan taas horta waxa weeyaan oo waa mid waa taas waa kufri inuu yiraahdo falsification حديث falsification adkaas inuu ka cabiro iyo kutubo jeebabka lagala soo baxay warkaas inuu ka cabiro warkaas waa fiicad marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wakila man adlamu mimman kadhaba 'ala Allah wa kadhaba bis-sidqi id jaa'a alaysa fi jahannam mathwa lil-kafirin wasu'ala ya ka dhulmi badan man kadhaba 'ala Allah ninka Ilaahay ka been sheegay وكذب بالصدق يعني رنتين بينيي حديث رونا واحد كان والنبي إنه كي من معروف هلا يقانوه والله دارن كرحته إذ جاءه مركب ولي ويمت ويقانا وقرنا إنه يقان هو رجل إسلقانه أليس في جهنم مثوى للكافرين مركب كفر إنه قلي وحويا ومش أسوأ كعب مدة كتسي درن أيضا وحويا يعني وحو كرء قاضي يعني دتكي قال هذا هاي وين كودي يبنهج كودي وكرء قاضي نبي متكسين وادمية ها أيبتغون عندهم العزة بوير إله ها أيبتغون عندهم العزة إن العزة لله جميعا إلهي بعيد ذلك عزوا كدونها ها عزوا كدونها inaan ilaahayna inuu nakasiina rajaynaya sababtu waxa weeyaan sideedaba waxaad ogaataan yani wadaadadan iska dhahdahaya lama rabo laakiin waxaad ogaataan qofkii nabiga ku xadgudba hatta intaan aakhire la gaarin adduunyada ku khasaaray macruuf waay hatta nimarku waxay yiraahdaan dadka muslimiinta ah hore waxay yiraahdaan haddii مثلا xisniga waxa la yiraahdaa meesha dhufayska gaaladu ay ku jirto waxaan jeclaan jirnay inay nabiga ku dhacaan inay nabiga wax ay ka hadlaan oo ku dhacaan oo caayaan oo maartay wax ka sheegaan jeclaan jirnay yiraahdeen illa waxay dhahaan xisnigaas waa furanayna yani fiiriya markuu nabi Muhammad ku xadgudbay xadiidkiisii wixii la yimid oo sidqiga oo la yaqaano macruuf ka ah waxa weeyaan meeshaas waxa weeyaan الدنيا آخر بوريكاس وخسارة
runtii waxa kaleeto maaragtay ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay maruu ka hadlaayey maaragtay wuxuu ka hadlaayey yani dadka diinta bahalkii muxuu ahaa laba siyooda ku keentay inay diinta ay ama ka tagaan ama bedelaan ama maaragtay bahalkii maxay ahayd waxaa laba shay uu sheegay falaa takhshaw nnaas wakhshawn walaa tashtaruu biaayaati thamanan qaliila waiyaaya fattaquu walaa tashtaruu biaayaati thamanan qaliila وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون marka aayaduhu waa badan yihiin aayadaha shiruhu waa badan yihiin أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار والكراهة فبدن yihiin aayadaha noocaas oo shiraac sheegaysa ولا تشتروا بعهد الله وأيمانهم بعهد وأيمانهم ساسو كله ولا تشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وكساس الآية سورة النحل أيضا marka waxa weeyaan dadku maartay yani diinta marka laba arrimooda ku keenta inay maartay yani ku tacadiyaan laba shay ayaa ku keenta oo mid waxa weeyaan inay dadka ka baqaan oo gaalada ka baqideeduna waa jirtaa gaalada waa xoog ay leeyihiin maartay dadkii iyo wala tashtaru bi ayati thamanan qaliila mid meeshan ka muuqatana saas waay ila wiilkan wuxuu rabaa inuu isku sharaxo waxaan inuu isku sharaxo rabaa nimankan isu sharaxaya وانا نقانو عبد الرحمن وحويان وحوالبا اكتيسا بيعوا وضنكو وابيع بهالكي محي دينتو وابيع ضدكو وابيع ضد وش سعبيلا واركاي لا اله الا الله محمد رسول ولا وحكا خساره بدنكو ادنا مال هذا يبقى لنا هذيسي قرنين وقتي تير كلوه لكن مركز تو waxay garanayeen waxa guushiisa inay xadiis rasuulka ta markasta way garanayeen marka asaga limitihiin waa ila mutaabacada qofka xumo baatilka lagu raaca asaga la mid noqonaysa baatilka qofka lagu raaca asaga la mid noqonaysa marka Cabdirahmaan waxiisu shiraawa awalna meeshaas meesha laha waa joogi jiray waxyaalahaas waa laga sheegi jiray waxa laga sheegi jiray waxa weeye inuu waxyaalaha cizi ku raadino maartay ama thaman ku raadi thaman adduunyada oo dhan waa thaman baqsi maartay thaman qaliila sida culimadu bay yiraahdaan marka waxaas inuu maartay Cabdirahmaan oo maantay la soo istaago shir la soo istaago soo mujeedid rasuulka ilaahay xadiidkiisa ku jeeso walaalow kafarta billahi alazim kafarta billahi alazim hada ka tooba keenina waxa weeyaan kiiskaas waa kugu sajilayn وكوكو سجلين وحنا رجينا دad caqli leedahay hada caqli leedahay oo dadka waxaan waxa weeyaan waakii muxuu ahaa dadka oo maartay bahalkii muxuu ahaa oo qalfoofka aan kugu aqaana dadka qalfoofka ah ee moogta aan shakhsiyada maartay aan hoos lahayn haasan kugu dareemaya meeshii dhalaag aad ku aragtida raacda waa ku aqaan meeshii dhalaag ku aragtida raacda ma qadadku inay dhalaag garanayeen in kala garanayeen inay iloobiin kala Soomaaliga garanayeen meeshii dhalaag ku aragtida raacda waa ku aqaan soo wajid marka haddana dhalaag siyaasiya soo baxay marka waxa loo maartay la isbaraayana waxa weeyaan waa nimankaas maartay gaalada ah ee reer galbeedka waxa la isbaraaya ayaga marka warka laga iibinaya meesha rabteena joogaawa marka waa markaan dhihi jiray tolbeele waxa weeyaan safety ilaahay baa galka gashan meeshii Salman Rushdie oo maray inaad martaan rajeynaa hadaada ka soo toobada ilaahay waa aqbal waana ku maartay raggalana waa arkay maartay kugu yeeray sida Soomoo kaleeto كسو عجيبتي سوها حديث بخاري وكيال وإنكراي حديث بخاري وكيال ودفاع عجيب لكن أنت سوا كم هتسي توبة كيرو كلاي لكن وحويا توضوا وافرنت هاي هذا توبة كين بلن واي ماشي ومرأينا المرتي أما الدون كمارتي أميل الدشوي أما مارتي بهالكي محيا دي إلهي وكاننا وسيفت سيفتي إلهي إنه كانوا كرجينين مارتي وحيالها مارتي قرنكا مركن إنكاس وحويان يا لقو قتل من لبضات عبود ولين مركن وحوي حتى لو حسوستي
aayad la yiraahdo maartay nin la oran jiray reer bani Israa'iil bulcum baacuura la yiraahdo la oran jiray qolana tiraahdo xagga islaamkana la yiraahdo Ubay ibn Abi Salti ninkii maandhiweed oo midkaan waa kuwan caybka ah waa qurun waaye maartay waqtiga meelaha loo orday waxaas oo asaga laftiis oo ku jira oo loo ordaayo maartay nabi hadduu nabinimo sheegan lahaa waa raaci atbaacdiisan ka mid noqon lahayn oo lahaa maaldhiweed aan radinay soo jeedi waxaan sida isu dhaaman waxyow ma halkii muxuu ahaa sida isu dhaaman marka aayadaas aan xusuustay oo waxa weeyaan watlu calayhim naba alladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaan fakana min alghaawin walow shi'naa larafacnaahu biha walakinahu akhlada ila alard wattabaca hawaahu famathaluhu kamathali kalb in taxmil calayhi yalhad aw tatruku yalhad ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون آياتها سلبدها يستويها أو حويا ليه إن كان مارتي كو أخريا لي واتل عليه النبي الذي آتيناه آياتنا إن كان آياتها يقسيني عن آياتها سيني ولكنه أخلد إلى الأرض كل وحاول بركة واتل عليه النبي الذي آتيناه آيات من سلخ منه وكسب محمد قولي اللي جيران فانسلخ dadka u bixiyay laana sheekhu hatta tafsiirka noo akhrin jiray oo diinta akhrin jiray waxa markii dambana ku xumaayo shuuciyada ahayo midda ila waa li jiray waa baarkii laf gaabtaana laf gaaba lagu tiri jiray markaas oo midda wuxuu is yiri meesha aad ka helaysid sinaan waa halkaan shuuciyadii halkaas uu leeyahay marka wax weeyaan insilaakhu marka waa khatar waa sababtoo aan saas u leeyahay waa maxay aayadan ugu dariishanay waxa weeyaan ninkan waa yaqaan diinta waa yaqaan diin laakiin waxa weeyaan baqtiga qurunka ah oo maartay oo laakiin akhlada ila al-ard wattaba'a hawadi sura famathalu kamathal kalb oo yiri ilaahay wa ay oo kale oo maartay bahalkii inta xamil calayhi yalla hadda cayrisana waxa weeyaan uu harahiraya oo carab la laadina haddaad iska daysana waa carab la laadina markii qofku markuu adduunyada barto saas oo kale waa oo qashin ka barto baashan siyaasadana waa meeshii oo rag qaarkood ay yiraahdeen $100,000 isku number siyaasada laga hela waxa qashin ka hay u barteen oo baqtiyo cunka qurunka ay u barteen markaas diinta Ilaahay ku tumanay على الأقل ما مارتي بهالكي محوها مارتي كل حد دينته إله وحقرن كهاد برتين وبختي كاو قشن كهاد برتين مركز مارتي دينته إله يا درتي وقلت ما نيسا صار مارتي هذا وأم الجار مركز عسكري لا عليه وحوي بض يبري يبالك يضد يدين وقدرنا يعني كذا وأقان لا كراع وأقان ها afkaaga ay lugay waxa baarta waxa umada u akhrinay bulfiiriya ninkaas wal wuxuu umada u akhrinay fiir as iyaguna u sacabtu maay idilkum allah waxa sida suudaan waqtiga hor nabiga hortiina lagu caayad maartay u sacbinaysa asan garineen hatta inay kufri taayeen maartay islaamta inay kala garin ama aad maartay maanta hadii uu yimaado maartay bahalkii muxuu ahaa dajjal uu yimaado horad ka raaci lahayd قبل الدجاج يلبو يري مارته صلى الله عليه وسلم سؤال الشيخ